abaaraha guud ee ka jira guud ahaan gobolada deegaanka ayaa saameyn weyn ku rabtay bulshada xoolo dhaqatada ah ee deegaanka Soomaalida gaar ahaan kuwa gobolka Liibaan. Mar aanu soconay safar shaqo iyo waxaan kula kulannay wadada u dhaxaysa degmada Boqolmaayo iyo degmada Fiilto qaar ka mid ah bulshada xoolo dhaqatada ah oo saameyn weyn ku reebtay abaarta iyagoo inoogu warbixiyay sida ay u saameysay noloshooda. dhulka abaara taala xoolo waxay soo qaadaan ay waayeen eri muluqaas baxay dameer muluqaas baxay gaal ay wax yar ka joogaan laba guul oon aas wadada sii hayna mugay soo fulaana wax joogsana male dhibkaas waa qabnaa waxaa ka daran gaajo dadkii dhibaato dadkii ahaa ka daran markaan wadanka walax la soo qaado oo la leefaa la waay saddexda adduunyo walaxay cunaan ay waayeen marka intaana jirta waa sida gaala aroorka waxaa iska imaaday cadcad meel yiraahdo maas ma martay haddaan berga meeshaas dhuud la xalayaas bergi ii saacadaan dhexdooda saana jidka u soo haay marka meeshaas tagaana irsaaqad kuma qaba marka dhibkaasaa jira baadaan noogu daran baad haa wixii kale rabbigayaan ka sugaynaa ilaa labadaasaa noogu daran. geesta kale hooyo xasan cabdille iyo gabadheeda oo kula kulannay duleedka tuulada qurac guban ayaa inoo sheegay in goobtani ayna u dhoweyn wax cilbiyood ah sidoo kalena aysan jirin wax gurmad biyo ah oo soo gaaray taana ay sababtay in wadada hareeradeeda soo istaagaan si ay gawaarida ugu qaataan biyo ay naftooda ugu dabibaan taasina ay tahay tan kaliya imaanta ku nool yihiin. abaar meeshaan ka jirta oo ma ka jira barkati waa naga angagtay laba bilood biyo kuwada baqtay naga yihiin marka meeshaan oo gaariyaasha dhaclaydo aan ka gacanta ninka noo soo xortama waa magaan saasaan hinda ku noolna adduunka biyo noola keena oo wax gacan gaari uu konto laga ridi waa dhalaho dhaclay hamoogiya bishaan bisheedi kala aan ugu dambeys xaraam ay naga tahay bishaan dhamaata bishaan hatta ma naga dhamaata to hor la hadda ku dhex jirnaa marta tateedi kala ugu dambeys biyo kala ariga iyo geeli iyo lo'dii maxaa la siiyaa biyo waa guureen oo kabtaasi baddo dhanka kabtaas ay u guureen marka xababa ma hay on kaliya la joog way ilmihii waxaan ku qaadana markaan weyniyo aqalhayna iska joogno gaariyaash magiisaan ku socdaan aan arhaynaan nasay arwalax nasay aan leen marka hooyo maadaama abaartas baan jirto oo saameyntii ku yeelatay xukuumadda iyo dawladda maxaad ku codsanaysaa in ninka gaarsiiyo biyo raashin ha raashin ma haysan hooyo lacag ma haysan awal hortay awal kal horo amba dhaween oo bisha hadda naga dhamaatay lacag dhanna noola keenay oo dawladda noo keentay maana kad maxabad noolama keenin biyo ma haysana raashin ma haysana markaan raashinka qamidiya la arkaa oo 2,000 adloorkeediya magaalada lagu arkaa walax kaloo ilaahay ma haysan abaarta iyo dhibka waa isla keen hayaa waa sida marka waa sidii xaaladda guud abaarta bal sawir naga sii abaar maanta ba sanad lama helin sidii sanada usoo hortay biilaan hadda ugu daran ii raashin la'aan lacag ma leh biyo ma leh raashin ma leh waa balbaasiin dawlad biyo noo soo shubayo aan haysano ma leh waa sida hadda maxaa laga gaarsiinaa xukuumadda sare iyo dawladaba biyo horta noola keen nafta biyo barkad waa iska angaganta waa qodanta meelna waa ka jabtay hasa haatay maandhood laan ruula u imaado tir waa anaka ka shaqaynaynin horta intii aan ku noolaan idaaba noogu shubi lahay hadda nafta cawd waxay u baxnaanayn. xukuumadda deegaanka ayaa dadaalkii ugu badneyd abid ku bixisay sidii ay u samata bixin lahayd dadka ay abaartu saameysay iyadoo uu gurmada kala duwan soo gaarsiisay haddii ay tahay dhanka raashinka lacagaha iyo weliba dhanka biyaha laakiin abaartii oo sii daba dheeraatay ayaa sababtay in goobahani oo ka fog xarumaha laga maamulo sidoo kalena ay adag tahay gurmad in la soo gaarsiiyo wadada oo xun awgeed ayaa sababtay in aad looga dareemo saameynta ay abaarta reebtay noloshooda iyo weliba tan xoolahaba.